بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waa maalin isniina taariikhduna tahay 17 bisha July sanadka 2017 ee miilaadiga. waxaad ku soo dhawaataan warka saacadlaha ah ee BSS TV waa telefishin ku hadla Afka Boqortooyada Soojireenka Soomaaliya. wararka naga soo gaaraya Koonfurta iyo Bartamaha Dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in dib uu soo laabtay adeega Internet-ka ee laga isticmaali jiray goboladaasi. adeega Internet-ka ee laga isticmaali jiray Koonfurta iyo Bartamaha Dalka Soomaaliya ayaa ka maqana muddo ka badan 3 toddobaad kadib markii uu markab jaray fiilooyinkii soo mari jiray badda hoosteeda. hase yeeshee duhurnimadii maanta oo maalin isniin ah ayuu dib u soo laabtay khadkii Internet-ka ee laga isticmaali jiray Koonfurta iyo Bartamaha Dalka Soomaaliya. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa shaaca ka qaaday in ay doonayaan in ay wada xaajood la galaan Kuuriyada woqooyi. Moon Jae-in oo ah madaxweynaha Koonfurta Kuuriya ayaa ku micneeyay heshiiska ay doonayaan in ay Kuuriyada woqooyi la galaan in ay doonayaan in Kuuriyada woqooyi ay hakad geliso gantaalada sida isdaba jooga ah ay u tijaabinayso. wararka ka imaanaya dalka Nigeria ayaa sheegaya in meel laga qodo shidaalka uu ka dhacay qarax aad u weyn oo geystay dhimasho iyo dhaawac. booliska dalka Nigeria ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in qaraxaasi ay ku dhinteen 9 ruux iyadoo ay sheegeen tiro inta ka badanna ay ku dhaawacmeen. wararka qaar oo ka soo baxaya qaraxaasi ayaa sheegaya inuu sababay burbur hanti badan. waxaa ilaa iyo hadda aan si sax loo ogeyn sababaha rasmiga ee ka dambeysay qaraxaasi ee ka dhacay dalka Nigeria. waxaa intaas inoogu eg warkii saacadlaha ah oo aad kala socoteen telefishinka BSS TV oo ku hadla Afka Boqortooyada Soojireenka Soomaaliya. ciddii uu dhaafana waxa ay ka heli kartaa barta aan ku leenahay internetka bssomalia.tk.